bal ka waran haddii dembiilihii intaas la raadinayay intuu ku soo waco si yar kuu yiraahdo dembiiluhu waa aniga haddana aad ku kaftintid oo aad dhahdid ororan dhaaf dembiile bee shimbir walba way xortaan dembiil iska sheegato miigu soo orad baa mudday dembiilnimada uu ku yiraahdo war wallahi waa aniga madi qaban mise ma qabanaysa ka waran hadda boolisku ninka noocaas ay dhayalsadeen sababtan aan kuu sheegi doona sheekadan waxay dhacday qarnigii la soo dhaafay waxayna ka dhacday dalka Mareykanka maadaama aan ku iri dalka Mareykanka ka dhacdayna waa inaan magacyada bedelaa magacyada Soomaaliya ka dhiganaa magacyada Soomaalida waxa ugu caansan Faarax marka waxaa jira wiil yiraahdo Faarax wuxuu la noolaa hooyadiis iyo aabihiis intaanay kala tegin ka hor maradaasa ku dhahayna macnaheedu waxay tahay way kala tegi doonaan laakiin hadda way wada nool yihiin Faarax hooyadiis iyo aabihiis waxay dhaqan jireen xoolahana kama wado ari iyo lo iyo waxaas dhaqan jireen digaag ay dhaqan jireen digaag cadaankan waxa ugu dhaw ay dhaqdaan waa digaag digaagan umaysi dhaqan jireen shaqayle u qabaan sidoo Faarax u malin jiray ee waxay u dhaqan jireen ganacsi ahaan markay rabaan inay cunaan kumahooda ay gataan ay isaga noolaadaan isha kaliya ku nool yihiin bay ahay laakiin Faarax isagu waxa ma ogeyn ilmo yar wuxuu ahaa 6 jir Faarax sidoo u jeclaa digaagaas Ilaahay baa ogaa ilaa maalintii hortiisa midii uu jeclaa oo uu sheegtay isagu eeg caruurta yaryarka ah markii wax meesha la soo keeno aan shaqadoodaba ahayn mid bay isaga dhigantan anaale bay dhahaan qofkii baadiye joog jira uu garan karaa meesha iska boodayso soo arkaya markaas uu dhigtinta ku soo dhago tan anaale uu iska soo jaraya saaloo camiriyo adaale baa leeyahay maalintii hortiisa lagu gowracana bala ka raacay sidaas oo kale Faarax digaaga tii uu ugu jeclaa inta hortiisa lagu soo jeeday la gowracay uu qaracmayba wuu yiri ma la gowracaa oo hadaan madiinta la bari lahaa yiri maxaa loo gowraci waayay oo hadda macni rabtaan maxaan wareer soo fadhiisay suurhan iskadiis uu qaracmayba qandha qabatay wallahi baanan cunaynin buu yiri digaagan jeclaa booliskan bidii waa سأوديشين الله طيسو أصوره وريا صفر يسالي قلبه يسوع صحري أبيه فكري وحير ديسان وحلم النقطة ويلكي وتشليع يا كبطي ما هل أنت وحي كدم بيسي فارح عبيس أنتو صاغب تفارح ودارد كانوا وتوسي تشري إسقو قلي دجاج فير ويا سيد أو قلي فير هورتيس وجورعي لا دهير ولقب صدي فارح جورعي دي وحاس يلي مدك دي فارح عبيس ويدي سويكاتك شرع أمريكان كنا المها مركو غور سحوسية ويدا هدي أي دبر كرت فارح ويدي سقاطي إسلح اللي جا فروحوا بالله بي إنه حيوان عادي ما هم بيرني هوشان حيوان كلا الله بصد بساقبته وجورعه أي بساقبته ودله ومدي إله نفته وكان أيوة أجمع كان فارح وكاقل صد أجمع كان فارح بالجورعه محو هذا اللي يروح أقولك عجبك صبر بهي عبارة من الصفرس ما هم باليرنون الدجاج يبصدوا اسمه ما هو حيوان بير حيوان يا حيوان ده ما يبالي حيوان إلا قال الله طلع قليل من ده إن لتداوضه تيام فعل هاي وقال يسام بير تيم يوم يوم كيسين ودي ليلي كرما وح راح نقول شيء استشي باليرنيو ما حاجة خلدان وحسيدي oo uu isaga raaxaysto xayawaan walba inuu dilo baa isna hooyadiis imtixaan looga dhigay way iska soo dhaxaragtay ilaa nin kale guriga keensatay oo ninkii la cunug aan nacay ayadina waa nacay yaa dhalay meel la soo fadhiistay anu ma dhalin kana shug bay u qorsi arxan daran bay wala dhaqan in yaroo naxariisu ka waayay ilaa heer hooyadiis nacay waxaan aniga imay dhalin buu yiri iyadina wax tiraaxaanu ma dhalin walba is dhasho isin karay wuxuu sidiis ku socdo wuxuu yiri maalintii dambe de hooyay adna ii dhibsatay anu ku dhibsaday ma ka tagaa si tirorod ilaaf uu soo dhaqaaqay aabihiisna naakala guursaday ilaa isna laad budabada u soo gali haduu ayaan yar la joogay sababtoo odaygan islaamtu qabad marabta wiilkan yarka aslan ba qof la rabi kara ma wax xukumay u ahaa marka isagu waa 12 jir ayadiisa loo geeyay ayadiis naxariis iyo jacayl iyo kalgacal buu ka sugay tabtii kale oo dhaqan farqomay baa tahay way tirniyo waa ku karaahsad aslan ba qof caadi ma tiid oo de waa runo wuu dhib islaantu marka waxay degan tahay meel yar baadiye oo magaalada ka soo durugsan qorigan lagu soo ugaarsado soo taqaanaan oo labada xabadood la geliyo inta kalena jawaab kale laga buuxsado bay u dhibto orada waxay tirbakeelayaasha soo laa wadiga xayawaanada leen jiray keen buu yiri hormaalmood baa duur kala galay habeenkiina ay qaylo nafta kaga qaaday ayna tir hoos aad fiiriya guriga qaybta u hooseysa oo fardaha iyo lagu xareeyo cawska iyo idaha iyo digada ay buuxday saalada baa seexanaysaa way tir ayadiis kaliya maha awgiisna wala jooga amar awgiisna fiican buu ahaa si xun ula muus dhaqmi jirin laakiin islaantu Ilaahay ku cadibay maalintii dambu intuu qorigii soo qaatay uu gurigii soo gala meeday uu yiri duqdi ayidii ahayd tirmaan dhow shibbuy waxa bana madaxa ka qaado markuu labadii xaba feeraha u galiyay odayga awgiis ah soo galay war maxaa dhacay odayga awgiis ahana laba kala feeraha u galiyay bal muxuu ku sameeyay kalaadu sheeg kadibna hooyadiis wacay hooyay waxbaan dareemayaa buu waxa dareemaysaa ay tir macaan waxa eegalaan waxa dareemaysaa shoog buu yiri hooyay ayidii waa dilay si tir ma bakeelad ku khalad na dilay maxaan sameeyaa buu yiri kulli warad booliska waxa ay tirniyo iyadu hadda kaftan bay u qabtaa booliskii buu wacay qof hadii la dilo sidii kale ma soo wici jirin haabay yiraahdeen aniga la ima dilin hadda ana wax dilay yaadish ayidii maahe wallahi yiri awgeyn waa dilay booliskii ordiyay yimaadeen mise waaba dhabkii yaraabay gardaduub u soo kaxeeyay hadii la waraystay waxa la yiri maxad islaanta ayida u dishay war nafta Ilaahay bay keentay buu yiri saasaan u dilay gartay oo
odaygana maxaa u dishay odayga waxa u dilay suusa u naxin islaantiisiiba la dilay maxaa ku noolaanaya laakiin isagu kuma soo dhibi jirin inuu dhibi jirin buu yiri laakiin arinta foosh xun ba u diidan marka biraxmati iyo naxariis baan u diiday wiil wanaagsan baa tahay baa maadaama Faarax ahaa wiil under age ah cidna dilku ma xukumi karin xabsi toona isbitaalka dhimirka la geeyay muddadii uu isbitaalka ku jiray horta muddo dheer bay ahayd daawooyin badan baa la siisay koolshahan baa loo macaamilay waxa la yiri qofkan IQ-giisa yani maskaxdiisa aqligiisu waa top xisaabaada noloshiisa loo dhigan buu isku dhufsanaya gabigiisa waa qof hay kalaas la yiri bismillaah waxay kugu taalaa laakiin nolol khiyaali ku nool waana sida ilmaha yarka markuu nolol khiyaali lagu soo koriyo oo bila arxan iyo naxariis wuxuu meeshii ku jiro markuu 22 gaaray oo de meeshii uu 12 sano ku jiray wuxuu noqday de laf iska baxday geed adigu 2 mitir buu kor u dhaaf yani dadkii lafta booday aad buu dheeraa markaas la yiri okay warisiyo badan baa laga qaaday waxa la yiri now you are okay macna dadka waa la dhaqmi kartaa ma ifasaxaysan bir dadka yaa la dhaqmay orad baa la yiri laakiin hooyada waa ku laabanaysa hooyadii macquul ma ahay ma iga deeysan buu yiri war hadda nin weyn baa noqotay orad hooyada waa yahay buu yiri hooyadiisu isaga tagay hooyadiisu oo islaam weyn noqotay da ahaan un bay weynaatay ma ahan sidii ula dhaqmi jirtay kamay weynaan tabti ula dhaqmi jirtay heer uu wareeray de maskaxdiisa dib u noqon gaartay alaabta ciyaalnimada u noqon gaartay intaas oo sano wixii psychology loo soo dhisay islaanta hooyadiisa ku ciyaari gaartay way ku ciyaari doontaa Faarax wuxuu go'aansaday inuu boolis noqdo maadaama shaqadaas uu leedahay de sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn oo laga yaabo haduu meel sare ka gaaro in la qadariyo la ixtiraamo de bartaas uu kalsooni ka yeesho laakiin de tuumaad baa tahay baa la yiri 2 mitir kor baad u dhaaftay see macna ma ordi kartid masaasay okay adaa idala saxayo see aragtaan maxaa ka hadlaysaa wali adigaan waxba war kugu daalin Faarax booliska uu ka agdhawaaday uu jeclaa yani afaaraha booliska iyo asxaabtiis ugu badan boolis bay noqdeen inta ay kula joogi jiray kiisaska ay xalinayaan buu wax ka ogaa marmarka qaar waxa loo keenay jiray soo la jooga kiisas gabdho niman la baxsaday gabdho gurigooda ka baxsaday gabdho inta lagu qeylqeyliyay iska cararay oo inta loo yimaado hadhow maalmo inta la raadiyay hadhow gabadhii la soo helo iyadoo de boyfriendkeeda iskala joogta balaayo dhan iyo in boolisku marka gabadh loo keeno kiiskeeda aanay hore u shaqo gelin oo ay dhahaan waa tu yar oo duday bal u yarkaadin intay soo laabanayso waxyaabo noocaas adiga wuxuu booliskiisa isaga dhex jiro hooyadiisna iskala noolaado haba isaga qeylqeylsay maalintii dambe ayuu khaati bilaa hooyadiis ka soo istaagay hooyo ma ahan buu yiri sidaan ay la dhaqmaysay si maaha say tiri maxaad ka bedeli kartaa marka waxba eedeen naga xisho waa ku sidee ka xishoon ma inay tiri bil akhlaaqi naga bax guri uu soo bax gurigiisa uu soo qaatay isagoo